asalaamu calaykum dhammaantiin saaxiibada sharafta badan. filimku wuxuu ku bilaamayaa bandhiga alabaryada oo ah dhacdo ay abaabuleen milkiilayaasha magaalada. sanadkan Hilda oo ah madaxa qoyska Van der Koy waxay dooranaysaa wiil si fudud loogu yaqaan Boy oo ay weeliyaan hooyadiis iyo walaashiis ka yar Mina. iyagoo cabsi darteed la gariiraya walaalaha waxay isqabsanayaan gacmaha markay Hilda bilowday xasuuqa. si kastaba ha ahaatee muddo kadib waxaan aragnaa Boy oo ku nool kaymaha dhexdooda isagoo uu ilaalinayo gaarhayaha qarsoodiga ah ee noloshiisa badbaadiyay. qoyska Van der Koy waxay u haystaan inuu dhintay. wixii markaas ka dambeeyay Boy wuxuu tababar ku qaadanayay fanka dagaalka oo uu jirkiisa ku xoojinayay sidii uu uga argudan lahaa kuwii hooyadii iyo walaashiis ka qaatay. intuu ka gudbayo tijaabooyinka adag ee gaarhayaha, Boy wuxuu maskaxdiisa kula hadlayaa cod aad u weyn oo raganimo leh. inkastoo uu ka badbaaday rasaasta Hilda, haddana waxay ka dhigaysaa dhigo la'aan iyo carab la'aan, laakiin wuxuu bartay inuu dibnaha akhriyo. codkiisa cusub ee mala-awaalka ah wuxuu ka yimid ciyaar dagaal oo arcade ah oo uu la ciyaari jiray walaashiis Mina oo uu la qorsheynayay inay ka baxsadaan magaaladan cadaabta ah. meel kastoo uu tago Boy waxaa eriyanaya xusuusta walaashiis, qofka kaliya ee awoodda u lahayd inay ka qosliso. dareemidda Mina waxay u muuqatay mid aan dhammaanayn, xitaa waxay ku dhiiratay inay farta ku fiiqdo taalo ay lahayd Hilda, dabcan faraha oo dhan. gaarhayaha ayaa Boy had iyo jeer ka soo saarariyo maalmeedkiisa isagoo uga digaya in xusuustu tahay ciyaar caruureed. hadduu doonayo aargoosi waa inuu noqdo nin. kadib sannado badan oo uu ku guuldaraysanayay dagaalka foolka-foolka ah ee uu kula jiray gaarhayaha, Boy hadda waa nin weyn oo aaminsan inuu ugu dambayn awoodi karo inuu ka adkaado. dhammaadka tababarkiisa, Boy wuxuu u dhow yahay inuu gaaro hadafkiisa, inkastoo xusuusta walaashiis uu mar kale ku dhibaatoonayo. gaarhayaha ayaa mar kale si xun u garaacaya. midda ugu daran ayaa ah in xusuusta walaashiis ay meel walba u raacdo, si kastoo uu isaga indhatiro. safarkiisa xige ee magaalada Suusahay u soo qaato, Boy wuxuu arkayaa koox askar ah oo uu hogaaminayo Gideon Van der Koy iyo seedigiis Glenn, kuwaasoo isu keenaya dadweynaha say ugu diyaargaroobaan nooca cusub ee alabaryada. halyeyga waxaa ku batay xanaaqa markuu arkay iyaga, gaar ahaan Gideon oo ah ninkii isaga iyo qoyskiisa afduubay. si kastaba ha ahaatee caradiisu waxba ma ahan marka loo barbardhigo haweeney ka mid ah dadka oo ku eedaysay qoyska Van der Koy inay yihiin gacan ku-dhiiglayaal iskuna dayday inay weerarto. taasi waxay keenaysaa in Glenn oo xabad madaxa kaga dhufto, taasoo kicisay kacdoon dadweyne. say uga jawaabaan qoyska Van der Koy waxay wacayaan Juun 27 oo ah dilaa ay aad ugu kalsoon yihiin. markuu Boy isku diyaariyo inuu dagaalka ku biiro, gaarhayaha ayaaba joojinaya isagoo xusuusinaya inuusan weli diyaar ahayn. kadib xasuuqa rayidka, Glenn wuxuu xusuusinayaa kooxdiisa inay weli u baahan yihiin inay doortaan 12 qof. inkastoo uu soo jeedinayo in carruurta la qaato, Juun waxay uga digaysaa maya carruur. muraayadaha koofiyadeedana waxay muujinayaan in arrintaas la xaqiijiyey. Boy isagoo iska indhatiraya digniinta macalinkiisa ayuu si dhuumaalaysi ah uga baxsanayaa oo uu ku dhuumanayaa boostakaanada gaariga qoyska Van der Koy. markay yimaadaan bakhaarka, Melanie Van der Koy waxay ka cabanaysaa in Gideon iyo Glenn ay keeneen keliya 6 qof. labadooda ayaa dood bilaabaya ilaa ay Melanie taladooda ay adkayso. inkastoo walaalkeed Gideon uu mas'uul ka yahay afduubidda dadka, ninkeeda Glenn waa inuu sii ahaado martigeliyaha alabaryada. Boy isagoo ku dhuumanaya meel waxaa naxdin ku noqonaysa xusuusta walaashiis oo muujinaysa inay hadli karto oo ka jawaabi karto fikradihiisa, xitaa qaylin karto. tani waxay cabsi gelinaysaa walaalkeed ilaa uu garto inay tahay keliya mala-awaal ku dhex jira maskaxdiisa. si kastaba ha ahaatee wuxuu mar kale ku dhacayaa mid ka mid ah kaftankeeda, taasoo fashilisay meesha uu ku sugan yahay. isagoo aan haysan waddo kale, hadda waa waqtigii uu soo bandhigi lahaa wuxuu ka bartay gaarhayaha. qalalaasaha dhexdiisa maxbuus la yidhaahdo Boosho ayaa u soo tuuray qori. Boy wuxuu u isticmaalayaa inuu ku weeraro waardiyaha, wuxuuna sidoo kale xoreynayaa saaxiibkiisa cusub oo silsiladaha ku xiran, iyadoo Boosho uu u ballan qaaday inuu u geyn doono Hilda. isagoo taas niyadda ku haya, Boy wuxuu ku soo noqonayaa dagaalka, wuxuuna laynayaa waardiyayaashii isagoo tooray ku wada dilaya dhammaantood. isagoo wajahaya mawjad kale oo cadow ah, wuxuu go'aansanayaa inuu tago meel sare oo uu halkaas ka soo weeraro. markuu is yidhi waad dhammaysay, waxaa mar saddexaad soo kacaya ilaalo madax adag oo ka adag sidii caadiga ahayd oo mar saddexaad u kacaya, balse daanka ayaa laga jebinayaa. damaashaadka Boy iyo Boosho waxaa soo gaabiyey Glenn, kaasoo isku dayaya si aan macno lahayn inuu u toogto. Glenn markay qabtaan wuxuu iska dhigayaa inuu ka qoomamaynayo la shaqaynta qoyska Van der Koy, isagoo u ballan qaadaya inuu ka caawin doono inay galaan qasriga. isla markuu dhammeeyey hadalkiisii madax furashada ahaa, Boosho wuxuu ku dultuurayaa shay culus, kaasoo madaxiisa burburiyey shil yar. kadib markuu sidaas sameeyo, Boosho wuxuu halyeyga u kaxaynayaa magaalada isagoo u sharaxaya in qoyska Van der Koy ay u isticmaalaan alabaryada inay ku cabsigeliyaan shacabka si aysan ugu dhiiran inay kacaan. inkastoo
sidaas ay tahay Bosho wuxuu sheeganayaa in iska caabinta ay weli nooshahay oo uu isagu qayb ka yahay. Intay socodka ku jiraan, Boy wuxuu arkayaa qof huwan oo si qarsoodi ah u eegaya, laakiin marka la eego taariikhdiisa maskaxeed wuu iska indhatirayaa. Markay gaaraan goobta iska caabinta, waxay helayaan Benny oo kaliya oo ah ninka kaliya ee ka badbaaday weerar ka yimid qoyska Vanderkoy. Bosho wuxuu damacsanaa inuu dhiso ciidan, laakiin wuxuu tilmaamayaa in Boy kaligiis uu ridi doono boqortooyada xukunta magaalada. Bosho wuxuu sii sharxayaa qorshe adag oo lagu galayo qasriga Vanderkoy inta lagu jiro bandhiga alabaryada. Dhibaatadu waxay tahay in Bosho iyo Benny ay si degdeg ah u hadlaan, taasoo ka dhigaysa Boy inay ku adkaato akhrinta dibnahooda. Wuxuu adeegsanayaa xeelad hore oo ah inuu u dhoola cadeeyo si aysan u fahmin inuusan waxba ka fahmin. Markay yimaadeen meeshii loo socday, Bosho iyo Benny waxay garaacayaan cunto kariye, waxayna Boy siinayaan dharka cunto kariyaha. Inkastoo Boy uu ku wareersan yahay, haddana waxaa jira ilaalo aad u badan oo si foolka fool ah ula dagaalami kara. Mina waxay ku qancinaysaa inuu tijaabiyo macmacaanka ilaa Bosho uu uga tilmaamayo bartilmaameedka dhabta ah ee hawsha oo ah Hilda. Markuu mar kale arko halyeygu, wuxuu xusuusanayaa inuu yahay qalab leh hal ujeedo oo ah dilid. Hadda oo uu ku sugan yahay jikada, wuxuu weerarayaa cunto kariyayaasha, kuwaasoo noqday ciidan hubaysan. Isagoo adeegsanaya keliya xoqaha miraha ayuu wejigooda ku gogoynayaa. Isagoo ku hubaysan midida kawaanka, wuxuu ku soo baxayaa xafladda qoyska Vanderkoy, wuxuuna goynayaa madaxa Hilda, ama siduu u malaynayo, maadaama uu si dhaqso leh u ogaanayo inuu dilay keliya qof aan ahayn Hilda oo loogu soo bedelay. Si lama filaan ah, Gideon ayaa soo muuqanaya isagoo shaaca ka qaadaya in dhammaan dadka ku sugnaa xafladda ay ahaayeen jilayaal loo diyaariyey, bal inuu qof waalan sida Boy uu isku dayayo inuu dilo. Inkastoo ayeeyadu dhab ahaantii meesha joogto, waxay ku amraysaa wiilkeeda inuu u dhammeeyo qofka soo galay goobta. Isagoo ka daalay canaanta ayeeyadiis, wuxuu bilaabayaa dood inuu iyada la galo, taasoo fursad u siinaysa Boy inuu ku qabto isla bastooladiisa. Nasiib daro, faa'iidadaas ma sii jirayso waqti dheer. June 27 ayaa soo gaartay ugu dambeyn cadow mudan. Waxay geliyaan dagaal culus oo ka bilowday qolka cuntada, socdayna ilaa koridoorka qasriga, halkaasoo Boy uu ka saarayo koofiyadeeda oo uu ogaanayo inay tahay gabar da'diisa ah. Khalad weyn. Waxay ka faa'iidaysanaysaa naxdintiisa, waxayna ku tuuraysaa jaranjarada, taasoo sababaysa inuu miyir daboolmo. June waxay ku soo toosinaysaa garaacid, waxayna ka garanaysaa qaab dagaalkiisa inuu tababar ka soo helay gaarhayaha. Waxay weydiinaysaa meesha uu ku sugan yahay gaarhayaha, laakiin Boy ma hadli karo. Sidaas darteed waxay u dhaafaysaa Gideon. Gideon dhankiisa wuxuu isku dayayaa inuu ka soo saaro runta, balse dhab ahaantii wuxuu qiranayaa inuu ka daalay dilalka. Waxaa la sheegay in loo sameeyo si wadooyinka looga nadiifiyo dambiilayaasha, laakiin waxay dhammaantood dileen sanado ka hor, halka Hilda ay ku adkaysanayso in la sii wado dilka. Intaas waxaa dheer, waxay keliya amarada ka soo bixisaa bakhaarka hoose, kaasoo ay diido inay ka soo baxdo baqdin ay ka qabto gaarhayaha darteed. Markuu arko in halyeygu uusan macalinkiisa khiyaanayn, Gideon wuxuu dooranayaa hab kale oo ah inuu ka caawiyo inuu dilo Hilda oo ah Gideon walaashiis. Intaas kadib, Boy waxaa loo qaadayaa goobta bandhiga alabaryada isagoo ah soo jiidashada ugu weyn, waxaana Hilda lafteedu ka soo muuqanaysaa masraxa markii ugu horeysay sanado badan oo aysan ka soo bixin bakhaarkeeda. Iskarantiiladu waxay ka sii dhigtay qof aad u shaki badan oo halis badan, sidaas darteed Melanie waa inay ka saarto masraxa. Dhanka kale, Boy wuxuu ogaanayaa inuu si qarsoodi ah u haysto been uu siiyey Gideon. Intuu isku dayayo inuu iska furo silsiladaha, wuxuu arkayaa bilowga bandhiga alabariga, halkaasoo dilayaal wata dharka majaajilada ay si arxandaro ah u jirdilayaan dadka rayidka ah ee loo doortay. Inkastoo Boy uu ku guulaystay inuu iska furo, haddana Melanie waxay ku garaacaysaa shoog koronto ah iyadoo adeegsanaysa kolarkiisa. Intuu ninka sida riyaha u labisan uu madaxiisa burburin lahaa, qofka dharka ku hoos jira ayaaba go'aansanaya inuu weeraro saaxiibadiis. Runtii weligood saaxiibo dhab ah ma noqon. Dharka riyaha waxaa ku hoos jira Bosho oo Boy ka furaya kolarkiisa. Dabcan Benny ma rabin inuu ka maqnaado xafladan. Kadib markay sharaxeen qorshahooda waalida ah ee soo gelitaanka, Boy waxay siinayaan gacan bir ah oo uu ku abuuray qalalaase weyn oo ka dhex dhacaya ciidanka Vanderkoy sida kuwa la socda oo kale. Haddii taasi aysan ahayn iskaashi, ma aqaan waxa ay tahay. Xasuuqa kadib, Mina waxay si cabsi leh u daawanaysaa walaalkeed maadaama uu muujiyey dabeecadiisa dhabta ah. Wuxuu ku mashquulay muuqaalkeeda, mana dareemayo inay Melanie bartilmaameedsanayso isaga. Isla markii ay toogato, Benny ayaa isku tuuraya hortiisa isagoo xabadda isu dhigaya oo noloshiisa u huraya. Markay xabaduhu dhammaadaan, Bosho ayaa dhaawac halis ah ka soo gaaraya Melanie, laakiin halyeygu isagoo ka xanaaqsan geerida Benny ayaa u suurta gashay inuu ku burburiyo caananaaska weyn, kadibna uu si toos ah ugu dhammeeyo telefishinka. Taageero qiiro leh ka helaya Bosho oo dhaawac daran qaba, Boy wuxuu ka dagaalamayaa gudaha istuudiyaha isagoo dilaya qof kastoo jidka uga soo horbaxa. Markuu xanaaqiisa dhammaado, wuxuu ogaanayaa in Bosho uu dhaawacyadiisii u dhintay. Kadib wuxuu arkayaa Gideon, kaasoo sidoo kale ay xabad qabadsiisay Melanie maadaama ay ka shakiday khiyaanadiisa. Gideon wuxuu siiyey Boy kaarka furaha ee bakhaarka Hilda. Si kastaba ha ahaatee, tani macnaheedu maaha inuu ka badbaadayo ciqaabta dembiyadiisii hore. Inkastoo Boy walaashiis ay ka baryayso inuu joojiyo daadinta dhiigga, haddana halyeygu wuxuu madaxa
madaxa ka goynaya Gideon isla markiiba xusuusta Mina way baaba'aysaa intii uu ku jiray wiishka hoos ugu socda bakhaarka Hilda waxay kula soo xiriiraysaa qalab gidaarka ku rakiban iyadoo ku hanjabaysa inuu u dhiman doono waxaan waxba ahayn Boy oo caro ka buuxdo ayaa tusaya sawir uu horay uga sameeyay walaashiis geeriyootay Hilda waxay u muuqataa inay gartay sawirka waxayna jaraysaa isgaarsiinta markuu bakhaarka gaaro Boy wuxuu isku diyaarinayaa dagaal weyn laakiin June waxay u soo dhaweynaysaa si nabad ah oo u kaxaynaysaa qol ay ka buuxaan sawirada qoyska Vanderkoy wuxuu arkayaa isaga iyo Mina oo sawirada ku jira waqtigaas oo dhan Boy wuxuu ahaa qof xiriir qoys la wadaaga cadowgiisa Hildana waxay noqotay hooyadiis dhabta ah markuu yaraa gaarhayaha ayaa ku khiyaamay sunta LSD isagoo si buuxda u bedelay xusuustii qoyskiisa kuna qanciyay in Hilda ay tahay cadowgiisa wax walba waxay ka bilowdeen markii qoyska gaarhayaha loo xushay alabariyada sababo la xiriira ficiladooda kacdoonka ah Boy oo ay gacantiisa hagayso hooyadiis ayaa dilay caruurta iyo xaaska gaarhayaha si kastaba ha ahaatee markii Hilda ay u ogolaatay inuu isaga kaligiis xabada ku rido wuu seegayaa taasoo u suurtagelisay gaarhayaha inuu baxsado dabadeed Boy oo murugo dareemaya ayaa galay kaymaha halkaasoo gaarhayuhu uu qabsaday oo uu muddo dheer ka dhigayay qalab uu ku argoosto kusoo noqoshada waqtigan xaadirka ah Hilda waxay June ka saaraysaa koofiyada iyadoo muujinaysa in June ay had iyo jeer ahayd walaashiis yar Mina isagoo weli naxdin ku jira Boy ma muujinayo wax jacayl ah oo ku wajahan hooyadiis sidaa darteed Hilda waxay aaminsan tahay in gaarhayahu uu weli ku dhex jiro waxayna amar ku siinaysaa Mina inay walaalkeed disho ka hor intaysan dilin halyeygu wuxuu ku fiiqayaa dhammaan shantii farood ee qalafsanaa sidaas ayayna ku aqoonsanaysaa walaalkeed Mina waxay dilaysaa Hilda halkii ay ka dili lahayd walaalkeed hadda oo ay yihiin cadowga nidaamka labada walaalaha ah waxay ku dagaalamayaan feer rasaas iyo nooc kastoo rabshado ah si uga baxsadaan waxay u muuqdaan inay si fiican wax u qabanayaan ilaa mid ka mid ah cadowga uu dhaawac qoriga minigan ku gaarsiiyo Mina markay neefta soo ceshadaan walaaluhu waxay u isticmaalayaan waardiyaha qalabaysan sidii gaashaan bani aadam ah waxayna ku dhawaanayaan ninka miniganka sita iyagoo u adeegsanaya hubkiisa dib ugu laabashada wiishka markale ayuu hoos ugu degayaa isagoo dib ugu celinaya meesha uu gaarhayuhu ku sugan yahay Boy wuxuu u sheegayaa inuu mar hore gaaray hadafkiisa oo ah Hilda inuu dilay si kastaba ha ahaatee gaarhayuhu wuxuu tilmaamayaa in Mina ay weli nooshahay Boy wuxuu si fudud u daawanayaa iyagoo dagaalamaya isagoo dareemaya inuusan awoodin inuu ka hortago macalinkiisa si kastaba ha ahaatee markuu gaarhayuhu qabto walaashiis caro ayaa cunaysa Boy oo ku riixaysa dagaalka run ahaantii gaarhayuhu wuxuu labada walaalaha ah u dhigay casharo adag oo uu kaga faa'iideysanayo tabardaradooda xitaa wuxuu qayb ka soo bixinayaa koofiyada Mina sida wax aan macno lahayn isagoo u adeegsanaya mindi ahaan markuu arko walaashiis oo xanuun ku jirta Boy wuxuu helayaa xoog cusub si uu la dagaalamo macalinkiisa way caddahay in gaarhayuhu uu si fiican u tababaray intuu dagaalku socdo Boy wuxuu mar kale ku dhawaanayaa in laga adkaado ilaa shakhsiyadiisii hore ay caawiso oo uu gaarhayaha si xun u dilo markuu taas sameeyay walaashiis oo dhimanaysa ayuu soo qaaday oo uu kala soo baxay tani waxay keenaysaa xusuusta labada walaalaha ah oo ku sugan arcade halkaasoo codka geemka uu ku dhawaaqayo in ciyaaryahan labaad uu ku soo biiray geemka muuqaalka kadib waxaan aragnaa labada walaalaha ah oo ku nool kaynta iyagoo cunaya quraac oo aad ugu faraxsan guusha ay gaareen muuqaalku halkan ayuu ku eg yahay fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kalena commentiga hoose noogu reeb kulanti dambe oo aad u xiiso badan mahadsanid